لكل طريق هناك دليل، ودرب الدعاة الهداة طويل، بهم يشرق الكون في فرحة، ونبصر وجه الحياة الجميل. لكل طريق هناك دليل، ودرب الدعاة الهداة طويل، بهم يشرق الكون في فرحة، ونبصر وجه الحياة الجميل. دعاة نسير إلى ربنا بعزم يعانق طيف النخيل، وردنا منابع أسلافنا وجيل مضى كان أفضل جيل. دعاة نسير إلى ربنا بعزم يعانق طيف النخيل، وردنا منابع أسلافنا وجيل مضى كان أفضل جيل. إذا لوث المفسدون الهدى. رئيس الوزراء حسن خيره si qurux badan runtii waa la ii soo dhaweeyay anoo waliba xambaarsan magaca culimada diinka Soomaaliyeed. runtii waxaan ka wada hadalay waa masiirka iyo halka loo wado iyo halka la doonayo waliba in la dejiyo wadankan. waa runtii waajib diini ah in culimada diinka ay runtii ay la hadlaan oo ay u yimaadaan u naseexeeyaan madaxdooda, sababtoo ah ilaahay baa runtii nagu guubaabinaya, rasuulka nagu guubaabinaya, islaamka nagu guubaabinaya oo dhahaya diintu waa naseexa weeyaan. diintan yaa xambaarsan, culimada diinka xambaarsan. maadaama culimada diinku ay xambaarsan yihiinna yay ugu naseexeynayaan, waxay ugu naseexeynayaan waa madaxda, waa shacabka, waa mucaaradka, waa insaankan. maxaa yeelay diinta waxa loo soo dejiyay waa insaanka. waxaase dembi ah, waxaanse ilaahay ogolayn in diintiina aad xambaarsan tahay dadkii quudan lahaa, lagu quudin lahaana inay ka qatan yihiin. culimada inay garab istaagaan, naseexa inay ula garab istaagaan madaxdooda waa wax aad iyo aad u wanaagsan. xabiibkeena sallallahu alayhi wasallam iskaba dhaaf dadkii muslimiinta ahaa ee uu la joogay diinta naseexadeeda wuxuu la garab istaagay gaaladii. waa ku waraaqaha u qori jiray, waa ku u tegi jiray, waa ku saxaabadiisa intuu u diro iyagoo wufuud ah waa ku u tegi jiray oo ay u geyn jiray oo u diri jiray. marka diintan waa naseexo. waxaan aad iyo aad ugu talinayaa una runtii dhiirigelinayaa culimada diinka xambaarsan diintan. dadka kale ee maaragtay xataa cuqaasha ah, mutacalimiinta, muthaqafiinta wax soo bartay, cilmigoodaas ay barteen in ay la wadaagaan uguna naseexeeyaan madaxdooda. si qurux badan baa runtii la ii qaabilay. xaba adduunye iyo hanti adduunyana kama aanan soo raadsanin, xaq ay nagu lahaayeen ayaanu runtii u gudbinay. si qurux badanna maaragtay waa ay u qaateen. way u baahan yihiin madaxdu. waa dad runtii maaragtay adeegayaal ah, waa adeegayaasha shacabka weeyaan. culimada diinkuna waa adeegayaasha shacabka weeyaan. waxa marka loogu adeegayo shacabka oo ay madaxdu ugu adeegayaanna waa in runtii culimada diinka ay zaad uga yeelaan oo ay uga dhigaan madaxdooda. waxaan leeyahay culimada diinka dal iyo dibad bay jooga, ha ka hakranina. meel fog iyo meel dhowba uga soo naseexeeya madaxdiina. runtii waxaan arkay halkanna aan ku arkay, saan shalay u arkay qalbiyada wanaagsan ee Muqdisho. waxaan arkay runtii madax qalbi wanaagsan oo runtii ogol, naseexada ogol. ilaahayna waa u baryeynaa runtii inuu ilaahay la garab galo. xil culusna way qaadeen. xilkaa culus kuwa ka soo baxa allaha ka yeelo, kuwa ummadan hore u dhiga allaha ka yeelo, kuwa cizigii ummadda lahayd, qabkii ummadda lahayd soo celiya allaha ka yeelo. runtii waxaa wax lagu wada qaban karaa waa wada jir, ayaa wax wada lagu wada qaban karaa. madax
iyo shacab wada jira ayaa wax wada qaban kara. waxa naga dhaxeeyana waa qarankan inaan ilaalino waa waajib diini ah. wadajirka iyo midnimada inaan ilaalino waa waajib diini ah. aynu wada ilaalino. ilaahayna waxaan ka baryayaa wadankan cizigiisii allah soo celiyo. ku noolaada meel walbo aad joogtaan Soomaaliya cizi iyo sharaf ku noolaada. assalaamu calaykum waraxmatullaah.